aad ayaan u niyad jabsanahay ra'iisul wasaare Cimraan Khan iyo xubnihiisa ka mid ah golaha wasiirada midna isma weydiiyaan caafimaadkayga waa hadalkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay dhaymankii reer Pakistan ay weyday saaka Dr. Cabdulqadir Khan hadalkan waxa uu ku qoray mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan Pakistan waxa uu ahaa maskaxdii iyo hal-abuurkii ka dambeeyay in Pakistan ay yeelato hubka wax gumaada ee cidda haysatana sida weyn looga goojiyo Dr. Qadir Khan ayaa sidoo kale waxa loogu yeeri jiray ilaaliyaha Pakistan sida uu tabiyay radio Pakistan waxa la geeyay isbitaal ku yaala gudaha dalkaasi kadib markii ay xaaladiisu ka soo dartay wasiirka gaashaandhigga Pakistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray warka geerida saynisyahankan isla markaasina ku tilmaamay inay murugo weyn ku tahay Pakistan Dr. Cabdulqadir Khan waxa uu ku dhashay deegaan xiga xuduudda dhanka Hindiya intii aysan Hindiya kala qaybsamin Dr. Khan ayaa Pakistan la yimid dhammaan qoyskiisa kadib kala go'ay Hindiya Khan waxa uu dubdhaxaad u ahaa fadeexadii nuclear-ka adduunka ee sanadkii 2004 waxa lagu eedeeyay faafinta agabka nuclear-ka sidoo kale madaxii hore ee ciidamada Pakistan iyo madaxweyne Musharraf ayaa arintaasi ku eedeeyay Khan fariin muuqaal ah ayuu Dr. Khan ku qirtay inuu tiknoolajiyada nuclear-ka ka iibiyay Iran Kuuriyada Waqooyi iyo Liibiya balse mar dambe ayuu ka laabtay arrinkaasi saynisyahankii nuclear-ka ee Pakistan Dr. Cabdulqadir Khan ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 85 jir Khan ayaa la rumaysan yahay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Pakistan ra'iisul wasaaraha Pakistan Cimraan Khan qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku yiri geerida Dr. Cabdulqadir Khan waa mid aad u murugo badan dadku aad ayay u jaleecayeen sababo la xiriira doorka muhiimka ah ee uu ku lahaa quwadda nuclear-ka Pakistan tani waxa ay Pakistan ka difaacday dalalka dariska la ah ee nuclear-ka ku hubaysan wuxuuna dadka Pakistan u ahaa dhiirigeliye Axmed Shimaali Honkable TV